السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Danson TV. daawade waxaan wadnaa barnaamij ku saabsan wacyigelinta COVID-19. haddii aad tahay muwaadin degan Denmark, qaasatan caasimadda labaad ee Denmark, Aarhus, xaafadda Galaqob ama xaafadda Brambach oo loo yaqaano, waxaa jira jaanisyo badan oo dadka loogu talagalay si ay isu baaraan oo loogana hortago looguna yareeyo COVID-19. haddaba haddii aad tahay muwaadin degan xaafadda Galaqob ya agaarkeeda, waxaad chance u helaysaa inaad iska baartid goobaha loogu talagalay adigoo warbixinta ka heli kara xafiiska secretariada ama biblioteka Galaqob. waliba waxaa kaloo information ka heli kartaa ururada maxalliga ah ee bini'aadanimada u shaqeeya xafiisadooda, halkaas oo wixii akhbaaraad ka qaadan kartid. haddaba haddii aad tahay muwaadin degan Aarhus, waxaad xasuusataa inaad COVID vaccinationka ama talaalka laftigiisa aad heli kartid adigoo aan dooran maalmaha qaarkood ama waqti badan aan samaysan. waad imaanaysaa, waxaad dhiibanaysaa kaarkaaga caafimaadka, isla markaasna waxaa lagu siinayaa talaalkii lagugu talagalay ama lagu soo diray laftigiisa isla waqtigaas. waa hawl fududeyn ay kugu talagaleen dadka xaafadda degan, xaafadda Brambach special Galaqob. waxaan kaaga tegaynaa daawade inaad taxadarka badisid, kana fogaatid isla markaa meelaha dadku badan isugu imaanayo adigoo ilaalinaya sifaafinta cudurrada nooca waxa uu qofku qabo ma garan kartid. marka waxaa habboon inaad dadka ka fogaatid, isla markaasna aad yareysid goobaha dadku mar walba isugu imaanayaan, ama sida xafladaha ama maqaayadaha fadhi ku dirirka ah. marka waxaan kuu sheegaynaa daawade wixii akhbaaraad waxaad ka helaysaa xafiisyada ururada Soomaaliyeed, isla markaasna waxaad kala heli kartaa xafiiska secretariga Galaqob Aarhus Commune uu leeyahay ee ku yaala xaafadda Galaqob. marka waxaan leeyahay daawasho wacan tan iyo kulanti dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.